باتي قيان زائدة لي هذا حنوما إيها ميلاني في عملها عندن دورك يو هندرتي قص كده ويجي حنونوين halkan aan ku suganahay waa kaamka beero oo ku yaala duleedka magaalada Muqdisho gaar ahaan Garis Valley waxaa ka dhacday la yaab leh oo dadka degan kaamka ku beertay cabsi kadib markii haweeney halkan degan afar raga oo hubeysan inta halkan ugu yimaadeen la baxeen odageeda oo goobjoog ka ah kadibna meel aan sidaas ugu fogeen guriga inta geeyeen halkaasi ku kufsadeen gabadha lagu magacaabo Xaawo Cabdiraxiin oo la hadashay telefishinka Somali Cable waxay noo sheegtay ragga falkaasi u geystay inay ku libsanaayeen dareeska tuutaha ciidamada dawladda wataan balse wajiga uu u xirnaa isla markaana maaskar wajiga ugu xirnaa guriga ii soo gal guriga markaa ii soo galna haraanti iyo waxaa soo dhuftay qoriga markii guriga soo galna qorigana wuu qabtay qorigii ani ninkay qabtay ninkan waa lagu qabtay anna waa laga qabtay markaan gabadhii soo qabsahaan dhahay gabadhii anoo soo qabsahooyo markaan tusha saan igu jiido dushan waa igu dhuftay feernyaa igu dhuftay yaa qoriga daabkiis ay igu dhuftay saana diracka igu soo qaad markaan meeshaas ay geysay banaan fiig hadda xanuun ay haya dhabarka iyo hurta iyo meelan kafiyaawi malaha xanuunsaan iga haya maba kasta ma sakaraat waybe wajiga ka hiranyi gaarin waa wateen gaariya wateen gaariga saan qabsoonaya jariiriya xunta ay dhahay dusha igu dhuftay marji ay qabtay sidii hooshii ay qabteen soonaya baatigaas ay igu jiray baatigiina ay igu tirtirteen saas waay baati qoyaan zaa'ida leeyahay hadda xanuun ay haya meelan ii fiican malaha andan dhawarka iyo hundurta iyo qaska dhan waa iga xanuunooyin Samiro oo ah gudoomiyaha kaamka oo la hadashay telefishinka Somali Cable ayaa sheegtay in cabsi xoogan ay la soo daristay dadka kale ee ku nool kaamka waxaa lagu dhibaatay maamo Soomaaliyeed oo 8 bilood ah uur leh halkan aan hadda joogno xalan niman dablay oo la soo baxeen tuutaha ciidamada dawladda ay wateen afar nin bay ahaayeen waxaa la ii sheegay saakan guriga ka soo cararay in 3 nin oo kamid ah ay gabadha farxumeeyeen ninna uu gaariga hayay xal oo dhan kaamka ay ku dhex wareegayeen waxaan codsanaynaa hay'adaha nabadgelyada iyo dawladaba in dadka masaakiinta ah ee barakacayaasha ee ku nool meeshan ee dhibaatada badan ku haysato in haddana nafsadooda loo badbaadiyo Maxamed Cumar Abuukar oo ah sayga haweeneydan kufsiga iyo dilka loo geystay oo kamid ah dadka baahiyaha gaarka ah qaba isla markaana goobjoog u ahaa dhacdada oo la hadlay telefishinka Somali Cable ayaa ka sheekeynaya sida ay ula dhaqmeen raggii kufsiga u geystay xaaskiisa oo uur lahayd nimanka la iimaanay saadii iimaadeen sagaal saabiina way iimaadeen sagaal saabiina saadii iimaadeen albaabka waa soo garaceen waa lagu soo furay qurbaadkiis baf albaabkiisa adal soo furay waa soo fadhiistay gabartiin waa soo fadhiistay kolku duwa maqashina nimankiina nin hebel ma dhax karin waxaan jira tuuti wajigana masqar waa nin hebel oo ma dhax karna ma jiro makasno ronat waxa wadadena oo cad ah banaankana u yaalay waxa ku qoyana afar nimood hal shafeer ah yana 3 ciidan oo tuutaysa 3 ciidan gabadha ilbahan kii kala mid magaasha la meesha oo wiilkan taagan meesha taagnaay wiil kale waxa ay dhaay ar soo dhaga ana ku tusaa booska ku soo kacay maxay ku sheegeen marka maxay ku sheegeen wal ihad maad ii sheegan ma jirta gabarta banaan jeesan waa ku dhagaalaysan sidoo kale halkan aan ku suganahay waa goob aan sidaas ugu fogeen guriga Xaawo Shariif oo ah gabadha dhacdadan ay ku dhacday isla markaana halkan lagu kufsaday goobtan aan ku suganahay waa halkii ay keeneen raggii soo afduubtay isla markaana iyada oo seegeeda uu ka dhow yahay goobta
halkan ku kufsadeen waa arrin murugo leh runtii qoyskana waa qoys danyar ah waxayna ummadda Soomaaliyeed ka codsadeen in la soo caawiyo isla markaana laga saacido sidii gabadhaasi xaamilada ah loola tacaali lahaa xaaladdeeda caafimaad. Ismaaciil Aadan Bilisa, telefishinka Soomaali Cable, magaalada Muqdisho.